waayahay maxay tahay sababta keentay khilaafka ka dhaxeeya wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha horta waxaan eegaynaa labada dacwadood dhinaca ra'iisul wasaaraha iyo dhinaca wasiirada Puntland wasaas intanan su'aasha ugu galaa waxaan eegi doonaa bal booqashadan waxay tahay maxay tahay booqashada ra'iisul wasaaruhu wuxuu u yimid cadaado iyo Dhuusamareeb khilaaf ka taagnaa oo siyaasadeed inuu dhexdhexaadiyo soo dawladda matalayay waxa kale oo uu yimid in doorasho la qabto xilliga loogu talagalay taasi oo xaaf oo markii hore ku qanci waayay oo ku qanacsiiyay dabeetana wanaag buu meeshii ka dhaliyay inta gobolada wasaas wuxuu doorbiday markaa maadaama Dhuusamareeb tagay inuu cadaado tago iyo degmooyinka galmudug xukuntay hoos inta hoos timaado galmudug sida way horta sida uu tagay galmudug afar wasiir oo Puntland kamid ah sidaas sheegtay oo gaalkacay yimid ayaa iyaguna waxay ugu tageen qaybta galmudug ra'iisul wasaaraha waxay weydiisteen in ay u sameeyaan maqaam soo dhaweyn aad u ballaaran oo aad loo bumbuuninayo in Puntland ay ra'iisul wasaaraha maqaam weyn ay u sameeyay inuu ka aqbalo isaguna wuxuu yiri uma imanin xilligan imaan la kulmo in maqaam sare iyo ra'iisul wasaare iyo aad maartay lay bumbuuniyo waxaan u imi qaybta waxa weeye hadda Puntland ee gaalkacay waxaan u imi dhalinyaro mudaharaad ama barnaamij nabadeed sameynaysa oo dhalinyaro inaan la hadlo marka cali su'aashan ku weydiinayo maxay tahay marka sababtan ay wasiiradan Puntland yaa soo diray horta anigu ilaahay hadda ma sheegi karo cid soo dirtay sababtoo ah haddii Puntland ay doonayso inay ra'iisul wasaaraha qaabisho marka uu horse ra'iisul wasaaruhu kuma cusba Puntland sax hore u yimi mar labaad kana haddii ay doonayaan inay la kulmaan si kadisa madaxweynihii Puntland uma iman madaxweyne ku-xigeenka uma iman gudoomiyihii baarlamaanku uma iman afar wasiir oo waliba wasiiran isu dhan aan ahayn wasiir dawlayaaliyo oo dhalinyaro iska soconaya oo waraaqa soo qaatay oo kale protocol baanu doonaynaa inaanu sameeyno iyo maqaam sare ra'iisul wasaaruhu sida aqalgalka markaan ka fikirno yaasino wasaas haddaad imka magaalo tagtid Soomaaliya kamid ah waxaad u tagtay dan iyo muraad haddii muraadkaaga iyo iska joolkaaga aad waa soo samaysatay anna aan mid kale la soo baxo oo aan ku yiraahdo si kale aan kugu tala galay labada jadwal oo iskhilaafaya waayahay marka ra'iisul wasaaruhu nin diyaar u ahaa Puntland inuu la hadlo ama odayaashooda la kulmo mu ahayn wuxuu ahaa nin u yimid galmudug xalintooda khilaafka siyaasadeed inuu xalliyo qoodan uu sii salaamo dhalinyarada marka waana markii ugu horeysay oo ra'iisul wasaaruhu Muqdisho ka maqnaado ugu yaraantii ku dhawaad laba weyn marka waqti kale uma sii hayo oo Puntland sii joogo marka Puntland meesha ma wuxuu yimid sidoo heshiisiin lahaa iyo doorashada dhici doonta sidoo lahaa galmudug waayahay marka maxay ka marka Puntland hadda wasiiradeedii shir jaraad bay qabteen maxaa la gudbin marka Puntland horta Puntland maxay doonaysaa marka hore waxay doonaysaa wasiiradu waxay ka dhawaajeen in odayaal Puntland iyo isimo iyo ugaasiyo iyo cuqaal fara badan loo diyaariyay sax xaqiiqda markaan ka warrabno cuqaasha ugaasiyada isimada Soomaaliya oo dhan waa kuwa Soomaaliya la degay ee kharibay way wasaas ra'iisul wasaarihi waa la mashquulinaya salaan qura ma ahe 200 oo isim ayaa ku imanaya oo loo geynaya marka saani walba program gooniya iyo faq gooniya wata أنا وحنا بحنا مشروع بيها عين كنا أنا وحنا بحنا إن دكتور هالكن ولا قسمي أنا وحنا هالكن يسح ما هالصلان لو تغير الزجاجة هي حنبلية وأشيدو نو سووتا تاسو قطب وقطب كلا بعده تطلع واحد وضع شقين شقين مركب مدحين هو يمادو فرماتشو قروي أما هو يمادو الزجاجه ودن كلهم بس كوكاية سيرو سلوينيا نبض والنمضة الصومال النمضة على مدى قريه دوش ولا سارين marka saad yaabaysaad leedahay wadankii maanta soo noqday labadaas marka diyaaradda dib u fuulaan waxa ku xigta shir jiraa'id oo ah next 2-3 days marka la gaaro iyadoo la leeyahay Puntland ay leedahay xiriirkii ayaan u jaraynaa federaalka marka waa daandaansi xukuumadda ay u raadinayaan qiil ay yiraahdaan hadhow ka cawdaan yiraahdaan berigi uu halkan yimid نامو إيمان سيدا دراد أنا قلنا مو وينين أنا دولة الفضل لكن ما لقيا وسيرة اسمه كأي مادين أي قرتين أي سلادين دي مرة دو يمي مدو أما ويمي دو قبل كاس
inuu labada meelood buu soo maray iyagu laftoodu iska dhaadhiciyeen inuu u iman doono laakiin aanay warwahayn inuu hawl iyo shaqo meesha u joogo doorta ra'iisul wasaare Yaasino inay yaro shandad sito oo meel ka soo dhoofay magaalo oo xamaro gaalka iska soo galay maaha waa nin magacii xukuumadda ku socda oo iska juwal qoran leh protocol buu leeyahay rag baa la socda raggaas u dajiyay isaguna uu la eegay qorshihiisa inta maalmadu joogay meeshuu seexanayo meeshuu wax ka cunayo dadka uu la hadlayo maalmaha uu joogayo intuba wax cad oo qoran oo loo yahay marka ma aha ninkii iska soo jeeda kaada anaga noo imo kaana hadii imaansho noqoto khayr uu u tagay qaybta Puntland ka taliso gaasayo oo wuxuu la kulmay dhalinyaradii imika waxaan ku tusayaa bil fiidigu soo socda eeg oo fiirso sida dhalinyaradu ay dusha uga fuuleen ra'iisul wasaaraha jacayl ay u qabaan iyo nabad iyo walaalnimo bal daawo horta waxay halyeedirano dadka iyo dalkuba kunagaadayo khayratu aqabo kasidirano alla doorayo hoganta cado lagu diirsado halyeedirano dadka iyo dalkuba kunagaadayo way ali وجهنا سوف عنه سلوي لكن هدي أنا وسيرده وين يا نمدي سكمسولها سريع وهلا يوم أود ويشي مدين عكله وجود بواه بدلان سوى شوبة كلمته وحلا شقيني عندنا كلا PSF ولا شقيني بقى أو قال يجو إن رئيس وزراء إسكتشوال كيسة أو كسعة شدول كيسة PSF تو مريكن با فنجريا ووسترن مركا ويسودويهن دولة فدرالكا oo dawladda Mareykanku ay taageersan tahay in PSF tuna ay u noqoto gacan yare cidii mas'uul ah ee ra'iisul wasaare ama madaxweynaha Puntland way ka baxaysaa iyadu markaa federaalka ayaa la wareegay federaalka la wareegay PSF marka PSF tu kama soo horjeeda manay oranin waan salugsanahay ra'iisul wasaaraha laakiin mid weyn eegna Puntland maxay doonaysaa exactly maxay doonaysaa Puntland waxay doonaysaa Yaasino in ay kala qariso xukuumadda iyo shacabka aan isu iman oo waxa la doonayaa afar odayo ilaa 60 kii shaqeynayay oo gabigooduba wada negative wixii Soomaali arrimeeda marka laga hadlayo dhinaca kale uu soo istaagaya in ay hor joogsadaan dhalinyarada shababka xilligan dhalinyaradu waa dadkii dalka Britain mas'uuliyadda qaaday madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal noqonay dhisay odayaashan waa iska tagayaan waa dhimanaya sax marka odayaashaas doonaya in ay xoog iyo cuburin ku hayaan oo waxa dhabta ee dawladda federaalka iyo Puntland ka dhaxeeya ay kala qariyaan marka ra'iisul wasaaruhu wuxuu madax banaanaaday inuu dhalinyaradii la kulmo dhalinyaradii oo aad u faraxsan wadiga arkay inay dusha ka korkoriyaan ra'iisul wasaaraha tan la diidaya waa in ay si wax doonayaan inay iyo ra'iisul wasaaruhu afarta oday inuu hor fadhiisto way aliyo madaxweynuhu ma hadlin ra'iisul baarlamaanku ma hadlin madaxweyne ku-xigeenkuna ma hadlin wasiirada ayaa hadlay ma malin saymis og yihiin oo la madaxweynaha arrintan ogtay mise waa dhalinyaradu iskala hordigtay waxa aan u arkaa arrinkan horta ku dayid mashkac ba wax la yiraahdo jira mashkac waxa weeye bahal yaro bariiska la geliyo oo afkana furan oo soo saara marka xogaa bariiska ku soo saaraya marka midhii baad eegaysaa bariiskan waa baazarca ma cari kariba ma qaadata ma iska disa hadduu kula fiicnaado meesha aad ku ogaato waa mashkacan deni iyo madaxda Puntland way og yihiin afartan wasiir inay protocol u sameynayaan laakiin waa behind the scene iyagoo isqarinayaan haddii ay hagaagtaan ciyaarta lug baan kula jirnaa haddii ay hagaag weydana xiriirkeena oran jirnay waan u goynaynaa ayaan u goynaynaa ay noqonaysaa laakiin afartan wasiir iyaga laftoodu culays weyn oo dawladda Puntland ma laha waa niman gobolkooda loo soo diro oo nabadgelyada ka taliya hadii jiro la yiraahdo idinku ceergabad u dhalateen ceergabadiina soo eega aad waxaad u dhalatay soolkiina soo eega idinku waxaad u dhalateen hadii la ku reeyay gaalka ay soo eega waa rag saa loo soo diray marka sorry marka ma aha wafd culus ama dawlad culus oo u babac dhigaysa in ra'iisul wasaaraha ay la kulmaan way marka ra'iisul wasaaruhu sababtu yiin weyntaas waan isla garanay waan isla fahnay Puntland marka ma sii soconaya
baad malanaysaa ra-iisul wasaaruhu socdaalkiisa dhinaca Puntland soo noqonay ma uma qabo waxaan aaminsanahay in socdaalkiisu uu ku tilmaamay socodkii nabadda uu soo gabagaboobayo marka intuu yimi waxa weeye waa galmudug iyo heshiisiinta iyo doorashada umalayn ma yaasiino in socdaalkiisa uu sii soconayo socdaalkii uu ku tilmaamay socodkii nabaddu waxaan aaminsanahay ra-iisul wasaaruhu inuu intaa kaga egyahay iminkana uu ku noqon doono Muqdisho ugu yaraantii laba way ka soo maqeen waayahay dadweynaha reer Puntland marka laga yimaado dawladda ma malaynaysaa inay ka qaadi doonaan laftigooda caro ay u qabaan ama dawladda federaalka si socodkiisaas iyo horta waa nin qodobka markii hore ku darayo arrinkan oo dhan baad moodaa inuu yahay daandaansi marka shacabku lama qabaan shacabka reer Puntland waa dad aad wanaagsan dawladnimada jecel nabadda jecel in Soomaali isdhex gasho jecel in galmudug iyo Puntland labada dhinac ee waqooyiga iyo koonfurta gaalkacayo inay isku darsamaan inay iska wax u qabso samaystaan inay kubadooda ciyaaraan ma hadda doonay inay kala fogaadaan laakiin cidda doonaysa inay hal jeer isxanibaan oo ay dadkooda hor istaagaan waa madaxda Puntland gabagabadii dadka maxaad ku soo gabagabanaysaa anu waxaan oran lahaa in kelmad dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba horta dawladnimadu waa qaali wax la heli karayo maaha waa tan nabadda ku fadhida waa ta ku fadhida mustaqbalka dhalinyarada inay dhisto horumar keento dadka reer Puntland ee la doonayo in la majara habaabiyo ama shacabka reer Soomaaliyeed wax wanaagsan in xukuumadan ay foolka fool isu hor fadhiistaan dadkan la hadlayna waa jiilashan dambe ee dhalinyarada ah iyaga xaq u leh xaq looguma leh in dhalinyarada la hor istaago loo hoosaasiyo oo madaxdooda laga qariyo iyadoo Puntland odayaashooda ay doonayaan inaan marnaba la isu soo dhawaan markaan waxaan u lahaa isu soo dhawaada isfahma wixii su'aalaad qabtaan ra'iisul wasaaraha weydiiya wixii aad qaadan kara weydaan runtii sheeg waxa waxa ku khaldantiin laakiin yaan la idin kala dhaxayn oo muraayad aan idin dhaxayn idinka iyo xukuumadda way yani aad iyo aad ayad mar labaad iyo mar saddexaadba mahadsan tahay halka waxaan ku soo gabagabeynay waraysigii ahaa socdaalka ra'iisul wasaaruhu iyo Puntland maxaa malanaysaa cali ayaa inooga sharxay aad iyo aad baad mahadsantihiin